gabar dhalinyaro aada u qurux badan oo guurdoon ahayd ayaa waxaa dhacaysay nin u imaanayo markuu u yimaado cidoo la joogo uu la sheekaysanaya. gabadha aadaa loo ilaalin jiray, fadhi weynay lahaayeen, iskala sheekaysanaya. cidda waxay rajaynayaan ninka markuu lasoo xiriiray hubiyaan inuu yahay nin wax bartay oo gabadha u qalmo, ay u ogolaana inuu guriga yimaado. markuu yimaado ilan gabadha jaamacaddii kusoo arkeen, markaasuu la fariisanaya ninkii. waxyaab badanaa dhacay. nin kasta markuu cabaar la sheekaysto wuu istaagaya, waa degdegaya, wuu baxaya. wax yar le markuu la sheekaysto ma soo noqonayo. markii waalidka ila xiriiraana wuxuu leeyahay arrintii waa ka baxay. haddana nin kalea u yimid sidoo kale. ninkii labaatanaad markii la marayo waalidiinta murugaa soo gashay. ana xitaa waalid waxaan ahay gabdho dhalay, alxamdulilah. haddii gabadhaada oo kii soo doontaba ka noqonayo waxbaa ku galayo, cuqdadaa ku galayso. wuu yaabay marka kii ugu dambeeyey aa yimid oo labaatanaad qaraabu ahaa kan marka ay aada isku yaqaaneen. gabadhuu soo doontay, gabadhi markaasi markuu soo doontay wax yar loola joogay, isla marka waa cararay u yeehan waxay kaale ha bixin, inaan kula hadalnaa rabnaa, manoo soo noqonaysaa? maya u dhahay. maxaa dhacay? waxbaan arkay u dhahay. marka qofka markuu u imaanayo ama markuu meelaha ku arko waa gabar caadi ah oo quruxdeedii iyo ilaahay wuxuu siiyey, laakiin mar alle markii gabadha oo agteeda uu soo fariisto uu soo dhowaado wax kale oo muuqaal kale yeelanaysaa, si kalena way u ekaanaysaa. qofkiina culeysaa laga saaraya, markaasu qofka u cararaya. markaas kadib wuxuu dhaha ana idima sheegi karo, waxbaan arkay, mana soo noqonayo. aabihii waa ilmeeyey, hooyadina meesha ku oysay. hooyo wax dhashay waa beer wax dhalay waayo. markii dambe nin sheeqaa siiyey waano. waxaa lagu waaniyey ducadan haddaa akhrisataan ilaahay subxaana wa tacaala wax walbo. ducada marka dadka qaarkooda hal tafsiiray ku fasiraan inta badan, laakiin maanta aan fasiraya. ducadaas waxaa waaye laa xawla walaa quwata ilaa billah. dadka badana waxay ku fasiraan laa xawla xeelad ma lihi, walaa quwata awoodna ma lihi ilaa billah. micnaheed waxaa waaye xeeladna ilaahay subxaana wa tacaala tiisaa ah xeeladii fiicneed, awoodna awooddiisa wax ka saraysa ma laha. ilahaasaan hoos galaya. intaas waaye sax waaye. laakiin tafsiirkaa jira oo ah laa xawla lagu fasira oo ah xaala ilaa xaala. anaha xaalad dhib badan ma jirto ilaa ilaahay wuxuu ugu bedelayaa xaalad aan dhib lahayn. xaalad faqri ah ma jirto, ilaahay wuxuu ugu bedelayaa xaalad oo hodantanimo ah. xaalad guur la-aan ma jirto, ilaahay xaalad guur wanaagsan oo barakaysan ugu bedelaya. intaasaa loogu fasira. waxaa ducadaas akhrista. nabigana dhahay qofkii akhrista u fariista. qisaa jirtay oo kutubta lagu qoro oo waqtiga nabiga ee dhacday calayhi salaatu wasalaam. laakiin hadda qisadan waaqici aan ka sheekeynana. ninkan waxay ku heshiiyeen isaga xaaskiisa 6 saacadood in 12 saacadood oo habeenkii salaada cishaha kadib in ay kala qaybsadaan oo wardi ay bilaabaan laa xawla walaa quwata illaa billah, laa xawla walaa quwata illaa billah. maamada waxay qaadatay gelinka dambe 6da dambe qaadatay 5 saacadood ugu dambaysa. asagana 5 ugu horeysa u qaatay. waa la fadhinaya, wax kale ma sameynayaan. laa xawla walaa quwata illaa billah, laa xawla walaa quwata illaa billah. culimmada waxay dhahan digriga wuxuu miro dhal ku sameynayaa. aayadaha qur-aankana way tilmaaman yaa ayuha aladiina aamanuu udkuruu llaha kahiiran wasabixuuhu bukratan waasiila. wax badan ilaahay xusa. ilahay wuxuu rabaa wax badan in lagu celceliyo, carabkaaga inuusan ka caajisin. 5 saacadood 5 hooyaa qaadatay, 5 aabbaha waa isbedelayaan. aabbihii waa nastay, wuu hurdooday, maamadii ayaa bilaabayso. markay sameeyeen maalin 2 maalmood 3 maaqan inta ka soo wareegatay ayaa waxaa dhacday aabbihii riya arkay. waqtiguu hurdaayay riya wuxuu ku arkay cod dhahayo gabadhaadu waa sixran tahay, waana la sixray. sixirkuna wuxuu yaalaa qolkiina meeshaas hoosteedu ku jiraa. ducada aada akhrisaan darteeda ilaahay wuu idinka shafiye. sixirkaas burburiya, guba. waxaa dhacday odayaa soo booday sida qof bahal qaniino oo kale aada u soo booday isagoo dhahayo waa helan maamida dhahday ma degan tahay? okay ma tahay? ha okay aan ahay. riyaan arkay. waa orday kaale isoo raac u dhahay. meeshii loo tilmaamay aaday oo guriga ka mid ah. jargon hoostiisa waxaa ku jiro warqado la duuduuday wuu ka soo saaray oo wax uun ku qoran waa sixir. waa gubeen. markay gubeen
dhammaantood way qubaysteen ilaahay laba rakac u tukadeen sujuud shukr fiiri maalinta ku xigtay guriga la yimid yaa imaanayo nin guurdoona nin oo jaamici ah oo dhaqan oo akhlaaq u dhamaystiran gabadhuu rabaa kuwa kalena haddana waa iska daba yimaadeen markaasaa ciddii waxay kala gara waayeen cidday u doori lahaayeen nin walba gabadhu rabaa inuu guursado markaasay dadka u sheegeen qisadan culummadana way u sheegeen qisadan saasay nagu soo gaartay laa xawla walaa quwata ila billah haddaad ku celceliso ilaahay subxaanahu wa tacaala wax walbo albaabadiisa kaa xirmay ilahi uu kuu furayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu